صاحبكيا kusoo dhawow ciidankaaga xeradaada welcome والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ومحضلي وحوي واجب waxa aynu qabanayno waa inaynu bisinka alle ku bilowno hadda ma bahaleele xiribtaan ku dhufanaa la yiraahdaa waxa weeye ma hadda koowaad ilaahay baa leh ma hadda labaad waxa kale halkan had ballaadhan uga soo jeedinayaa gudoomiyaha gobolka iyo maamulka gobolka dhammaan saraakiisha ciidanka qaranka culimaudiinka dhaqanka xildhibaanada intaba waxaan leeyahay waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum intaa ka bacdi waxa weeye kolley dee dadka majorities garan mayno sidaa taliyuhu soo sheegay anigu waxaan ahay taliyihii ciidanka ilaalada xeebaha ee saldhigga saddexaad isnaag horta marka hore barasho wanaagsan intii aanaan isgaranayn weeye intaa ka bacdi waxa weeye waxaan doonaynaa inaynu wada shaqayno waxaan doonaynaa inaynu danta guud wada ilaashano danta guud haddaynu ilaashan weyno danta gaarkaana la heli maayo dadku iminka waxay yar tixgeliyaan ta gaarka ah laakiin waxa ka muhiimsan inta guud la ilaaliyo ta guud haddii la ilaaliyo ta gaarka ahna waa iska imanay weeye waxaynaan qabsanna cid inoo qaban mayso hawshuna waa isla qabasho annaga quri guul ma keeni karo haddaan maamulka gobolku dadka shacabka ah aynaan isku duubnayn annaga quri guul ma keeni karo waxa weeye anigu in badan baan badda ka soo shaqaynayay runtii saaxiibkay isagu muddo yar buuba ka shaqaynayay anigu in badan baan ka soo shaqaynayay runtii dagaal badan baa ka soo galay budhcadbadeedii guulo badanna waa ka soo hooyey waan ka soo afjaqay runtii tahrib gurayaashii iyo budhcadbadeedii iyo wixii la mid ahaa xeebihii xaggaasi bariga runtii guulaha waxaanu ku gaadhnay waanu cid walba aanu kaga guulaysanay markii aanu cidna la macaamili weynay $500,000 la yiri qaata waanu diidnay warbal hebelkaa noo sii daayay oo $500,000 qaata aanu diidnay cid walba taanu kaga guulaysanay taasay ahayd insha allah bilmullaahi kariim ilaahay baa wax bixiya wax kasta waxaa ka muhiima muwaadilnimada iyo maxay ahaydtay ilaashiga dalka iyo dadka waxa weeye sidaa haarun soo sheegay waa runtii labada nin ee ciidanka badda isugu dhowaanu ahayn laba nin oo saaxiib aanu nahay haddana saaxiib aanu waxa weeye waana wada shaqaynaynaa aniga haaruun saldhigaygii baa loo bedelay aan ka soo shaqaynayay waxa weeye aniguna sidan iyo si lamida ayaan ugu wareejin doonaa haddii alla yari waktiga ay boonaato
شاء الله بالله الكريم waxaan doonaynaa maamulka gobolka oo bartaabka ugu horeeyo inaan wada shaqeyno waan idin la shaqeynaynaa nala shaqeeya waxa weeye kulli dadku hadda ninka xilka u haya iminka iyagu hawl badan waa la xujaynayaa waa la maagayaa kii danta kula yimaada danta khaldan kula yimaada tiraahdo war ka joog si kale ku maagaya waa wacyiga jira weeye waxaasoo dhan waxaan doonaynaa haddii alla yari inaynu maxay ahayd iskaga mid ahaano iskaga duubnaano dadkeenna iyo dalkeenna aynu u shaqeyno waxaan kusoo gabagabeynayaa kusoo horinayaa insha allah bilbillahi kariim ilaahay baa wax kasta inoo fududaynaya wasaaradaha aan wada shaqaynta khaaskaa wada leenahay sida kalluumaysiga maaliyadda runtii waa laba wasaaradood oo muhiima wasaaradda kalluumaysigu waxa weeye waa wasaaradda badan dee inoo biraysa neefka soo lama birayo waxaa ku jira dayada inoo biraysa maaliyadduna dee waa tii inooga soo qaadaysay inta yare dhaqaalaha ah waanu idinla shaqaynaynaa waa laba wasaaradood oo muhiima waanu idinla shaqaynaynaa idinkuna nala shaqeeya aan isku duubnaano wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad ayuu mahadsan yihiin labada taliya sida saaxiibtinimadana isugu wareejiyey xilka iminka haatanna waxaan yeedhayaa taliyaha gobolka taliyaha laanta socdaalka gobolka Awdal iyo Salal gaashaanle Fuaad Cabid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا واحد كلامي وحنا إلهي نجي لو ترينا وقعدت تجمع أيام معمول. تريها اللولي من وحنا إلهي قاصر. واحد أصل. هذا وأنا كلاش عندنا. نكاسي كتير موجود تشوي. إذا كنا وافي حي حي. الله كلا قصته. هذونا الحرير. dadweynaha iyo dadkaba iyo maamulkaba kulli waxay ka dambeeyay gudoomiyaashii degmada gobolka iyo aan waxaan leeyahay labadaba guul baan tirinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taliya waxaan kusoo dhaweynayaa taliyaha guutada lixdanaad ee ciidanka qaranka dhame Ismaaciil Ibrahim Meygad بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta farxadda sharafta leynu joogno ee xilka kala wareegayaan taliyihii saldhigan saylac iyo taliyihii saldhiga saddexaad ee Cerigaabo dhammaanba waa maalin sharaf leh waanaynu soo dhaweynaynaa waxaan ku hambaliyaynaynaa waxyaabaha faraha badan ay qabteen waxaana ku dardaarayaa inay hawshooda iyo tacabkoogaba libilaabaan oo halkii loo baahnaa ay gaadhsiiyaan liannahu dalka ciddii u shaqaynaysay cid kale oo maqan ma jirto waananu wada shaqayn doonaa taliyihii horena waanu wada shaqayn jirnay oo xagga tahriibta aad baanu uga wada shaqaynay waxyaalo fara badan oonu dabargoynay baa jirta dadkii wax abooleynayey wixii lagu abooleynayey wixii dadka lagu qaadayey intaba gacantaanu saaran anagoo iska kaashanay labada ciidane gabadda iyo ka ciidanka qaranka hawl wanaagsan aanu ka qabo noo muuqata taliyaha cusubna waanu la shaqayn doonaa si wanaagsan baanu la shaqayn doonaa wixii karaankeenu laga qaban karna waanu la qabanaynaa baddu waa hawl badanta laashkaa badda jooga waxaad arkaysaa markay baddu caado dadka lasoo seebiyo dabadeetana dadku halkaa ka raacaan dabadoodu ka dhaqaaqaya waa berga yamantu caafimaadka qabtay laakiin magaalada xagga u kacay maan filayo lafteeda xaggan meel la taga ma laha marka waxa weeye hambalyaan leeyahay hambalyo waanu ku soo dhawaynaynaa haaruunna waan sabootiyaynaa
sidaa yaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaynu u xigi doonaa yeernaa xildhibaan maxamed daahir عمر xildhibaan aadan xildhibaan maxamed daahir caamir halkaa joogaa بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa madaxda meeshaas ku timid madaxa qaranka gudoomiyaha gobolka oqaasha xildhibaanada dhammaan waan salaamaya waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kabacdi sidaa waxa weeyaan xilalka madaxa lagu kala wareejiyey taliyaha hore xilka wareejiyey horta war intii weyn badan balkan joogay horta aad baan hambalyaynaa ninka waayo sidaa uu ka sheekeeyey waxa weeyaan waxqabad fara badan oo halkaa wadiga arkay oo maanta xeradaas anuu sayla waxaa joogay fara badan baa joogay inkastoon dadka in badan ka soo horreeyey gurigaa ine fooqaa ka dhisnaan jiray bergii aanan ciyaala meeshaan kaa kale mar damba lagu daray inta dambana ee dhisanna intaa taliyahaas jooga deerikaa iyo labadaa guri iyo intaa dhisanba horta intaa taliyuu jooga lagu daray sidaa uu ka sheekeeyaan horta meeshan mareerada berigii hore intii isagu intuuna joogin iyo madaxdii kale intay joogeenba hal gaari baan ku ogaa maadaama intaasoo gaari aniga igii joogaaba yaabay intaasoo gaari markii meesha ku arkay ninkaas nin aad horta u shaqeeyo ahaa ciidankana ciidan dhisan dee wadaga arkayo ciidan kaa qaranka iyo ciidankaas waa isku tayuun taye fara badan buu horta ciidanka noo sameeyey tayaar waa sii sokoteennaa waa sii dhaweynaynaa wuu mahadsan yahay aad baan uga shaqan jirnay iminkana si fiican waan u sokoteennaa taliyaha cusubna waxaan leehay ku soo dhawow adigana sidaa iyo selamadan kula shaqeynaa waan ku soo dhaweynaynaa inkastoo dan kafta ku hordira xaggaa bariga madax fiican lagu qabsado faysal iyo gudoomiyaha kaxbadda iyo ka yimaadeen isagana waanu qadanana waan ku darana isagana insha allah waan la shaqeynaa wuu mahadsan yahay isagana waan la shaqeynaa ku soo dhawow asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu cabdullaahi bodle بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله الهي waa mahadle halkan xafladan quruxda badan ee la isku yimiday nin walba waxaan ku salaamaya darajadiisa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa markaan ka gudubno xafladan qiimaha leh ee labada taliya ku kala wareejinayaan inaan ka soo qayb galnaa mahad bay noo tahay waxa weeye kolley inta badan horaa looga sheekeeyey in badan oo kale way ka sheekeyn doontaa anu waxaan ahay xildhibaan golaha deegaanka ah taliyaha cusub ee inoo yimiday dee kolley allah u fududeeyaan leyna hawsha iminka u yimid allah u fududeeya allah la qabtaan leyna isaga wax loo duceeyo weeyaano dee waa nin hawl qabanaya allah u fududeeyaan leyna taliyaha hore ee haaruun runtii waa nin si fiican noola shaqeeyey inkastoo qolada baddi iyo maaliyadda uu maaragtaan arrinta ay ku koobeen dadka iga horreeya ama isagu waa uu ku koobay runtii annagana noola shaqeeyey haaruun wuxuu nagala shaqeeyey iskuullada waxaa jirta marmar au dhulkan roobku au dhulku xidhmo oo gaadiidkaasi mooyaane gaadiid kale aanu dhulka marin yaa jirta waxaa jirta iskuul boodhin oo halkan oo dadku ay ka kala yimaadeen tuulooyinka dhaadheer dhul dhaadheer ay ka yimaadeen gaadiidkiisaa noo qaada uu noogu qaadi jiray taliyaha cusubna intaa ayaan kasii badan baan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu annaga nala shaqeeyo oo shacabka la shaqeeyo oo la shaqeeyo maaragtaanay dhinaca kale dawladda ayaan isagana ka rajaynaynaa ilaahayna kuu fududeeyaan leenahay madaxda ka soo qayb qatanayna waa salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ومسيح دبك waxaan u yeeraynaa maamulaha customka gobolka Faysal Aadan Yusuf magacana waa Didisha Cabdirasaaq baa Cabdirasaaq magaca hagaaji بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم horta dhammaan madaxda gobolka iyo degmada ka soo qayb galay iyo tiifiyada oo salaamaya ma oran karo hebel ma oran karo saxaafaddu waxnoo tibinaysay hebel ma oran karo dhammaantiin waa salaamantii marka labaad horta marka labaad waxaan halkan maanta ku kala wareejinaynaa xilkii labada taliye badda iyo badda maxamed otor iyo haaruun horta haaruun
mar baanu wada nimi 3 bilood baan waxaan ka soo horreeyay 4 bilood baan malaynayaa laakiin isagoo taliya xigeenna baanu yimi Harun wuxuu ahaa ninkii kaliya ahaa ee dhaqaajiyay cashuurta badda waxaan ugu mahadnaqayaa ciidanka mareennada runtii ilaa janan ilaa iyo Harun ilaa askari sida wanaagsan ay aniga kulli ila shaqeeyeen inta xilka aan la wariyay caruurta adigu xagga ka bixi maayo inta aniga khusaysa waxa weeye horena waan u sheegay maantana waan sheegaya TV-gan waan ka sheegay iminkana waan sheegay ciidanka badda ilaa janan ilaa iyo halkaasi ilaa maalinta aan imi maanta waxaan joogaa 2 sanadood baan wada joognay ninkii leeyahay Harun 2 sanadood bis wanaagsan baa leela shaqeynay si wanaagsan leela shaqeynay waxa weeyaan kontrabaankana si wanaagsan baa leela doonayay waa leela soo afjaray cashuurtana si wanaagsan baa leela qabanay sidaas ayaa lagu xalaaleynay in ay noqoto baddaasi maanta horena waan u sheegay iminkana waxaan leeyahay baddaasi 80% wax cashuura ku baaqda ma jira waxaana suurtageliyay ciidanka badda iyo ciidanka iyo kalluumaysiga iyo annaga oo gacan ku siiyay taliyahaas waxaan ku sagootiyeynaa wada shaqayntii wanaagsanayd ee naga dhaxaysay xagga maaliyadda iyo cashuur qaadista aan naloo soo diray siduu noola fududeeyey ama noogu dhegdheglaa ama gacanta buuxda habeen iyo maalin noo siinayay horta taa waan ugu mahadnaqaynaa kolley anigu soomaalidu waxay tidhaahdaa nin badiyeyna ma wada dhammayn nin yareeyena ma badsan hadalka badin maayo ninkaas wuxuu ahaa nin wanaagsan oo shaqada garanaya oo dowladnimada garanaya oo nidaamka garanaya oo haddii ku xukmaayo gacan weyna siiyey oo dhaqaajiyey oo sidaa uu sheegay anigu ma waan soo xisaabinay ma registerkiisu ka soo xisaabsaday anigu ma totalka inta anaga baan soo laakiin 80% kullu inay kor u kacday dakhligii maalintii aan ugu yimi iyo ka maanta uu taagan yahay inuu torno waxaan leeyahay waxaad u timi ciidan dhisan waa run waxaad u timi wasaaradda maaliyadda si wanaagsan ciidanka ula shaqeynaysa waxaad u timi wasaaradda kalluumaysiga oo ciidanka mareennada si wanaagsan ula shaqeynaysa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan waxaan leeyahay sidii Harun iyo ciidankiisu noola shaqeyn jiray inaad ka sii badiso waxaanu kugu soo dhaweynaa gobolkani waa gobol qoladayna reer baro waxaynu naanaa haddii ku xugmaayo marka meel kale la geeyo waxbaynu ku aragnaa qolada galbeedkana marka galbeedka geeyo xun bay ku arkaan kulli aan intaan joogay galbeed waxaan ku arkay dad wanaagsan iyo ummad haddii ku ma jecel dowladnimada waxaan kaloo ahayaa oo jooga oo xaqiiqa oo qiraala Soomaalidu marka hore TV waxbay ka sheegtaa marka dambe TV waxbay ka sheegtaa anu tii aan maalintii hore ka sheegay maanta ka sheegay tii aan maalintii ugu horreysay sheegay ayaan maanta ka sheegaya waxa gobolka ka shaqeynaya ilaa xildhibaan ilaa taliye qaybeed police taliye mareenno muxuu ahaayay madaxda gobolka ee dawladdu u soo diratay waa dad gacmaha is wada haysta oo wada jir ah oo meel u soo wada jeeda dawladnimadooduna ka dhabta boqolkiiba boqolla si wada jir u shaqeynaya manaan heleen Soomaalidu waxay ku mahmaadaa had iyo jeer carabka lagu hayaa gobolka sida waqtiga hore dakhligiisu intaas u ahaa waqtigan maanta intaas u maraya maaha mid aan keligay soo saaray oo mid madaxda gobolka iyo saxaafadda iyo cid walba oo kulliba ay nala kor loola qaadeen lana jecel yahay in wixii la qabto oo halkeedii la gaaro waxaan aaminsanahay boqolkiiba 99 cashuurta aanu qabanno halkii ugu wanaagsanay ayaanu maraynaa un baan naga dhiman baan maraynaa markaan waa gaari doonaa insha Allah waxaan leeyahay taliyaha cusubna ku soo dhawow taliyihii ka tegina waxaan ku soo gootiyeynaa gacmo furan waana isu noolahay waana isu joognay meel kalena waan isugu iman doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi طاهر بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halka salaamayaa hogaamada loo yimiday ee waday taliyaha cusub iyo dhammaan mara saabka maxkamadda xildhibaanada saraakiisha ciidamada booliska magareeshinka ciidamada qaranka anigu halka uga gudbaya waxaan leeyahay taliyaha cusubna ku soo dhawow gobolkii Salal ku soo dhawow waa ciidanka kale haatay ay wasaaradina wada xukunto iyo magareeshinka xiriirka wada leenahay had iyo jeer haddaan boolis dahay
gurmad uga baahannahay gargaar uga baahannahay na garab taagan had iyo jeer gaar ahaantaya mar walba sida gaarkaa xidhiidhka u leenahay ee wixii ama naga itaarroonada nala qabta weeyaan marka waxaan leeyahay maanta nin walba dee nasiibkiisu qabaa haaruun wuxuu wareejinayaa maanta gaadiidka guryaha badan oo dee nin walba nasiibkiisa intaa uu joogana hirgashay waxaan leenahay nin walba nasiibkiisu meesha xilka looga dhiibuu la yimaadaa waa nasiib uu la yimiday waxaan leeyahay taliyaha cusubna adna nasiibkaagu wixii gobolka ku soo daraan eegi doonaa insha allah waxaan leenahay haaruunna dee si wanaagsan baan kuu sabootiyeynaa haddii beri la ugeeyana wakiil halkaa noo joogon bataan marka waxaan leeyahay waa halkii hebel baa waxay dadku yidhaha hebel baa halkaa jooga ku talagalkii unbaad ahaan waxaan leeyahay dhammaantiin kaana waan soo dhaweeyeynaa isagana waan sii sabootiyeynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu suu kalmadkii u yidhaahdo maamulaha kalluumaysiga gobolka ahna kusimaha iskuduwaha gobolka awdal iyo salan faysal ibraahim cilmi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أرجو ما كان عضي حفلة كل ورجنا وآد وروح بدن ما أنت حالك كان عضي حفلة وروح بدن وكل ورجنا لوا إن سركالة هارون سعيد يا محمد وتر ولا بنو صاحبه لابد ذو هروان سكون قيني وحا أنا هالكن كسو دويني يا محمد وتر وهذا شقين عصب أين نحمر دونتو سيدنا الله شقيني تريه هراء هارون سعيد هنا نسلو له شقين دونه ويحان لقبنا إن الله قبنا دونه ونسود ويننا وعن كلون شيء إن مجالنا سيلع إن عدنا وزارة الكلوميس عدنا هاي إن وزارة الكلوميس هي وزارة المالية ده وهذا شقين حوق لا يعني قد حيسه دقلقاً وشيء إن تريا إذا كإلى هذا حبها والدقل جرا كنت أنت أنا وحاول على سد هذا هيدود يسوي شقيه هذا الكبير البكرة وحاول إن سد هذا هيدود شقيه من ننطر روح نسينا إذا كإلى هذا حبها ومركز تنقرب تاجن هل كان دقل كردونا ندبق له ندبق سرعة إلى عليا كده بتجا وأنا ما أتنقينا ساسا لنا هاي محمد وتر إنه سفي عن الإسلام والشقيق علونا أن نكسر ويننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم باي هذا الكبير sidoo kale nagu soo xidho xafladda waxaan ku soo dhaweynaynaa barasaabka gobolka Salal Cabdirasaaq Waadiri Rabbi بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha gobolka Salal saraakiisha ciidamada kala duwan صح لو مقلو taliyaha laanta socdaalka hadalka faantada gudoomiyaha maxkamadda amraha kastamka gudoomiyaha degmada lagu hayo nala jooga xildhibaanada golaha deegaanka maaliyaha xigeenka dekedda maamulaha kalluumaysiga odayaasha duqeyda inooga yimid la yacdo dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta saxaafadda raalli ahaada inta ugu muhiimsan ee waxa lawna saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan dheerahay horta aad u baxsatay marka hore taliyaha cusub aan soo dhaweynaa taliyaha cusub waxaan leenahay waa xatimiday waxa laga soo bedelay ceelgaa waxa timidna waa saylac waa dalkaagii degmadaadii waa timiday ku soo dhawow baan ku leenahay marka hore degmadaan ku soo dhawow saylac ku soo dhawow waana ku soo dhaweynaynaa waanu kula shaqayn doonaa insha allahu tacaala sidii kii hore aan wada shaqaynay baan wada shaqayn doonaa taliyii horena waan leeyahay aad iyo aad baan u salaamayaa waan mahadsan tahay runtii wuxuu ahaa nin dee aad aan saaxiib nahay in aad noola shaqeeyey wax badanna laga shaqeeyey wuxuu nagula shaqeeyey si askarinimo nagula shaqeeyey wax badan si odaynimona uu nagula shaqayn jiray runtii si odaynimona uu nagula shaqayn jiray waxaan leenahay taliyaha cusubna insha allah inaad saa nagula shaqayn doonto runtii meeshan wuxuu yimiday Haaruun iyadoo ka dhisay gurigaas oo kaliyaad
ammaantan la siinayo ma aha ammaan la saarsaarayo waa ammaanow kasbaday wey waa run wey waa ammaanow kasbaday weeyaan waayo wuxuu soo kordhiyey dhismayaasha aad arkaysaan faraha badan le isaga ku soo kordhiyey gaadiid wax uu helay waa nasiib insha allah haarun waxaan u rajaynaynaa halka uu joogo iyo meel ka sii sarraysa inuu gaadho insha allahu tacala inuu gaadho yaa aad ilaahay ugu baryanaa uuna gaadhi doonaa insha allahu tacaala taliyaha cusubna waan leenahay soo dhawow taliye waan ku soo dhawaynaynaa waxaad timid dalkaagii waxaad timid degmadaadii waanu kula shaqayn insha allahu tacaala waanu ku soo dhawaynaynaa soo dhawow baan ku leenahay waanad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maayarka degmada Lughaya Cabdullaahi Cali Awno soo dhawow maayar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أقرأ السلام يا دوميها قبل كسلل حلبانada saraakiisha ciidamada kala duwan دوميها محكمة hay'adaha kale dawladda kalluumaysiga iyo Soomaaliyada oo kale dikada waxaad ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan xafladan maanta qiimaha iyo qaayaha badan ee meesha ka dhacaysa oo saa hortibada la soo sheegay ah kala wareegga taliyihii hore oo lagu sabootinayo iyo taliyaha cusub oo la soo dhaweynayo runtii waxaan hal kelmad waxaan odhan lahaa berigii hore dee awad walbay wada ahayd waa kii gobolkan salal markii dambe la magacaabay isuduwayaasha lasoo magacaabay ee gobolka salal qaybtan maaliyadda iyo waxaan iska soo galnaa iyo kalluumaysiga iyo ciidanka badda qaar badan oo ka midi way ogyihiin inay ilaa halkaasi ay ka shaqeeyaan ay soo gaadhaan in badan oo ka midihiina ma oga laakiin waxaan taliyaha cusubna u sheegaynaa Lughaya waxay ka tirsan tahay gobolka Awdal ciidankaaguna wuu joogaa oo ka shaqeynaya xeebteedii qorshaha ku darso oo inta siilacuna isku koobin taliyaha hore si fiican baan u wada shaqayn jirnay runtii hawlo badan oo dhulkaa ka jiray aad buu ciidanka xeebta uga shaqeeyay hadday tahriib tahay hadday kontrabaan tahay hadday xayawaan tahay la gurayo aad buu uga shaqeeyay taliyaha cusubna kolle waxaan rajaynaynaa inuu sidii si ka fiican uga shaqeeyo anaga qoladeedan golayaasha deegaanka ah waxaa lanagu wareejiyey shacabka idinkana taliyayaashana waxaa lagu wareejiyaa ciidan labaduna ma kala maarmaan shacabkuna waa kuwa og goob kasta iyo waqti kasta iyo waxa dhacay markaa waa in uu taliyaha waxaan leeyahay aan farayaa aan kula talinayaa inuu shacabka ku dhex jiro si shaqada wax badan ay ugu hagaagto waayo ninka wax samaynaya qaldan ninka dareeska xidhan uu iska eegaya laakiin ninkaan dareeska xidhnayn iskama eegayo waxaana ugu duceynaynaa inuu Ilaahay u fududeeyo shaqada saldhigaa maanta loo dhiibay hawshiisa inuu Ilaahay u fududeeyo ugu duceynaynaa oo Ilaahay ku asturo waxa Ilaahay ku asturo wax ka qurux badan ma jiro inuu Ilaahay ku asturo ayaan ugu duceynaynaa taliyaha horena waxaan ugu duceynaynaa inuu halkaa maanta uu wareejiyey meel ka sarreysa inuu Ilaahay gaarsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan yeelnaa daba soo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal iyo Salal اوكي waa iska dahda hoos loo gabagabay marka hore anagu waxaan nahay maxkamadda rafcaanka labada gobol ee Awdal iyo Salal runtii anagu in fact waan ka wada shaqeynaa muxuu ahaa ciidamadoo dhan ama military ha ahaado police ha ahaado marina ha ahaado immigration ha ahaado waanu wada shaqeynaa ka maxkamad ahaan aanay waxa weeyaan waanu wada shaqeynay muxuu ahaa Haaruna dhowrkii soo ay soo qabteen meesha waa nagu nimi waanu xukunay lahaas halka yaalla oo kala makiinada wadi anaga wareejinay oo xukunay ku wareejinay barada fog goobsog buka tahriibtu way istaagtay markaa meel halkan oo la yiraahdo maxaa magaciisa Saacadiin ayaa lagu xiran jiray halkaas baa laga waxayn jiray
arkaasi waa arrin dheer buu ahaa u afgo-ay tahriibtaas hadda waxaad moodaa inay bilaabantay waxoogaa waxaa la yidhaahdo muxuu ahaa mayuunigan waxaan muxuu ahaa aboolaha imika farabaas nagu haya oo jabuuti laakiin tahriibtii badda way naga afgooday harumaa afgoyday waxa weeyaan ciidanka baddu labada hay'ad qura ma wada shaqeeyaan sida ay sheegeen kalluumaysiga iyo maaliyadda hay'ado badan ma wada shaqeeyaan xagga sharciga halkan waxaa jooga yani saldhig baa jooga waxaa la jooga xeraaliye ninkaa xeraaliye kabtankaa baa noo jooga waa xeraaliye kiisaska ay soo qabtaan ciidanka baddu dee si ku wareejiyo waa baaristii ciidanka booliiska waa baaray waa qawadan baaristana way wada shaqeeyaan ka maxkamad ahaanna waanu ka wada shaqeynaa marka waan la shaqeynaa haddii aanay maxkamaddi jirin oo xeeraalinta iyo baarista iyo booliiska jirin wax baaraya dee ciidanka baddu waxba ma sixi karayo marka waa taayir wareegaya taayirkan kaaruhu waa silsilad saa wareegta haddii xabad ka baxdo dee way u shabaabsan marka waa wax isku wada xidhan sidaa uu sheegay muxuu ahaa cabdirasaaq aadiisba waa madax kastabka waa dad isku wada xidhan isku wada waxaysan waxa weeyaan markaan halkan nimaadnaa dhulka maxkamad ahaan farigaygu waa boorame halkan waan kiiskan halkan u nimaadnaa ciidanka badda waxay yihiin kuwana caawima yani wixii aan u baahno yani ama xagga badda ama waxa inkaasaa naga taageera kiisas way jiraan runtii waayo anagu orta wixii kiisaan baa noqoseeya ilaa shalay waa ku jiray magaalada waxaad maqlayna kiisas waxaa maqalayo runtan sheegaa waryaa marka la sheegayo ajaanib wato oo nin muwaadina sidaa ugu tuntoo dhaawacay ayaa la soo qaban waayay waay maxaa ku dhacday muwaadin jooga dalkiisii sidee ajaanib markab ugu dhex dilaa waryaa I don't know taas waxay ku dhacay ma garanayo waa wararka aan helayay intaan su'aal unka maxkamad ahaan nin baa baralaati ah wuxuu ka bidaa kuwan kalluunka iyo waxaas waay haddii dee jirto wiya waa wararka anigu aan helayay moogta ya waa anigu dooxa ma qariyo ha waayo anigu caddaad baan hoo caddaad waxaa ma qarso wardadii fuxeeliyo dadka qaadkiin ayaa u qaadan moogtaan cid weerarayo ya dadka qaadkiin ayaa u arkayaan cid weerarayo ya laakiin raalli halleega hado waxaa weeyaan runtii taliyaha cusubna waa soo dhaweynaa anuu ka maxkamad ahaan wixii kasta uu qabto hadduu yimaadaan waanu ugu iman doonaa waanu la shaqeynaa waan u xukumaynaa wixii yani badda ka yimaadee dacwadaa waanu u qaadaynaa isagoo kaashanaya xeeraalinta iyo booliiska diyaar baanu nahay wada shaqaynteeda hore xagga ciidan ahaan aan ku wada shaqaynay diyaar baan nagu nahay haaruunna aad baan ugu mahadnaqaynaa waxqabadka uu ka sameeyey meesha iyo fadalka uu soo qabtay aanu anagu xukuneen goobjoog ka ahayno hadda ismidkeedii kaa yaallo uu yahay aad baan ugu mahadnaqaynaa waqtiguna waa soo gaaban yahay ka horena khayr baan ugu ducaynaa kadibna khayr baan ugu ducaynaa wasalaamu calaykum warahmatullahi waxaan yeelayaa kursimaha maamulaha dekeda muxiidiin awale soo kalinta soo koobaya kelimadka khafiifatay aad baad u wada mahadsantihiin dhammaantiin madaxda iyo ciidamada intuba aad bay u wada mahadsan yihiin kulley hadal baa hadhay waan hadla un looma hadle wax hadhay ma jirto madaxdii inta badan way wada hadleen duqii gobolkana u hadhay aniguna ka dekad ahaan waxaan leeyahay inkastoo uu naga booday taliya haarnooy inta wuxuu sheegay maaliyad iyo inay isla shaqeeyaan kalluumaysiga anaga lafta ka dekad ahaan ciidanka badda waan isla shaqeynaa shaqana waan wada leenahay markaas waxaan leeyahay aad baan u soo dhaweynaa ka cusub waxa aan ogeysiinaynaa inuu ku darsadana dekedana inay leeyihiin xiriir laanta dekedana inay xiriir leeyihiin haaruna waxaan leenahay si wanaagsan ma wada shaqeynay waan kuu ducaynaa dhanka deked ahaan ilaahayna ducada ku aqbalo dhammaan dadku ku duceeyeen assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh soo xafladda nagu soo xidho waxaan u yeedhanaa ugu dambeyn marasaabka gobolka salal cabdirasaaq waa beri rooble
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وهل مركو هورا سلامية دمان مضاعدة قيبها عيدا مدى قرنكا كلا دوان عيدا كبارينيسكا ومانتا حفلة لبدا تريه لو كلا وريجيني هانو جوغنو عيدا كبوليسكا عيدا كمتقانا قرنكا laanta socdaalka immigrationka oo taliyahoogu socdo waxaan salaamayaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee maamulka gobolka iyo degmada maxkamadda racfaanka gobolka awdal iyo salal culimaadudiinka iyo dhallinyarada bahda saxaafadda dhammaantiinba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xafladdan runtii waa mid aad u qurux badan ay kula kala wareegayaan